wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Puntland ayaa socdaal uu ku tagay degmada Tawfiiq iyo deegaanka Afbarwaaqo oo dhawaan ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya beelo walaalo ah ku dagaalamay deegaankaasi. Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Puntland ayaa sheegay in wada hadal iyo qodobo hordhac ah laga gaaray xaaladii dagaal iyo waliba xabad joojintii looga dhawaaqay degmada Tawfiiq iyo deegaanka hoos yimaada Afbarwaaqo dhawaan xiisadahaasi ka soo sida xustayba socdaal ayaan ku joognay tan iyo shalay degmada Jariiban iyo degmada Tawfiiq run ahaantiina socdaalkaas wuxuu ahaa kormeer guud oo aan degmooyinka ku maraynay khaasatan inaan u kurgalno xaaladii ka dhalatay dagaaladii ka dhacay colaadii ka soo cusboonaatay deegaanka Tawfiiq iyo Afbarwaaqo halkaas ay ku dagaalameen dad walaalaha oo ehelo derisa oo ka kala tirsan Puntland iyo galmudug oo Afbarwaaqo iyo degmada Tawfiiq run ahaantiina waa ka hadalay marar badan baanu ka hadalay ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan ama ka guud ahaan dawladda Puntland inaanu ka xunnahay dhibaatada halka ka dhacday inaanu ka tacsiyeynayno dadkii halka ku leeday iyo kuwa dhaawacmay in Ilaahay caafiyo labada dhinacba waxaanu kala hadii aan meesha tagnayna aanu shirar la qaadanay waxgaradka iyo odayaasha degmada Tawfiiq iyo maamulka degmada Jariiban saraakiisha ciidamada Puntland waxaanu ka wada hadlaynaa waxay ahayd in la xakameeyo lagana shaqeeyo inaan colaad dambe meeshaas aysan ku soo noqnoqon in maxaa la yiraahdaa la fududeeyo sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa nabadana looga shaqeyn lahaa in gacanta odayaasha iyo isimada iyo lagu soo celiyo inay ayaguna nabadda ka shaqeeyaan Puntland iyo galmudugna labaduba waa ka wada hadleen waana ka wada shaqeynayeen in deegaankaas ay nabad noqoto guud ahaan gobolka oo dhan nabadiisa laga shaqeeyo lana ilaaliyo waxyaalaha xasaradaha keeni kara.